aqoonsiga Somaliland maaha samafal ee waa istiraatijiyad. Waxa sidaasi yiri xildhibaan Ted Cruz oo ka mid ah senatarada aqalka odayaasha ee dalkaasi Mareykanka, la markaana ah saaxiib qaali ah oo Somaliland ku leedahay dalkaasi Mareykanka. Xildhibaan Ted Cruz oo ka tirsan Koongareeska dalka Mareykanka ayaa isbarbardhig ku sameeyay xaaladda Somaliland iyo Soomaaliya, isagoo oo sheegay in aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland aanu ahayn arrin samafal ku dhisan, balse uu yahay go'aan istiraatijiyadeed oo si buuxda ula jaan qaadaya danaha amniga Mareykanka. Xildhibaan Ted Cruz waxa uu xusay in aqoonsiga Somaliland uu la socdo mabda'a America First, isla mar ahaantaana uu xoojinayo saaxiib ay wadaagaan qiyam iyo dano abni kuna yaala gobol muhiim u ah ganacsiga caalamka iyo la dagaalanka argagixisada. Isagoo sidoo kale arrinkaasi ka hadlay, xildhibaan Ted Cruz ayaa waxa uu yiri aqoonsiga Somaliland ma aha samafal ee waa istiraatijiyad, waxaanu si buuxda ula jaan qaadaya danaha amniga Mareykanka iyo mabda'a America First. Xildhibaan Ted Cruz ayaa hadalkan ka qoray falcelin uu ka bixiyay maqaal ay shabakadda dad heli ku qortay diidmada Soomaaliya ee aqoonsiga Somaliland ee dowladda Israa'iil ay siisay dhowaan. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaan Ted Cruz ayaa ka mid ah saaxiibada ugu cadcad ee Somaliland ku leedahay Koongareeska dalkaasi Mareykanka, isla mar ahaantaana isagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay u dagaalanka iyo u ololeynta qadiyadda qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland. waxaanaynu odhan karnaa waa saaxiibka suuro geliyay in uu beesha caalamka iyo fagaarayaasha waaweyn dhex geeyo qadiyadda qaranka Somaliland. daawade like and share soo follow page-keennani Maxamed Juba. waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Jubba, warbaahinta Jubba Media.